أول إله ما أذكر تبارك وتعالى وإذن بهالعلم يا بهذا صحافة وحروا بإذن الله تعالى ما أنت إن الشعب الصومالي يبش عن تبع لو ذاقه كرير أو قوم أو كسب سنددي بلد وشنت البلاد هاد وأفضل كل إيستي حقيقيا حاربة أولا قلت إلى أمه العليو لما شعب الصومالي المسؤولين تي صوماليين وكحماتي وحلي اللي ورد رقمي سيدي اللي وسمي بيش سيدي ده سودني كود سنة فرق الماضي أنا وصفرة ومقالة مقدشو قرنك آذن عدة سفر ترانسيدا كواحة قواشد اللي غفتي دولة الفدرال كأه شعورتي أي كموجية شعب الصوماليات كارهان رجبلان دل يدودبا هي مسؤولين بدن الصوماليات ولو ربنا سيجارة أو مهد عليو مدحونها دولة بتولان ولكن سعيد عبد الله الدني يحل بان فقي ورنت قديد السيجارة أو حلي هذه أبو مهد عليو يعني أما المسؤولين الشعب انتبه ذاتك الصوماليات دكتي وحلي ورد أرمي أنت سكدب أنا وعفمة طبعا الحمد لله هذه أبو هذا وعفمة طبعا وحبات أما قبوا وحن كسونا هي مجرد بلد حاول قبل في الجدو وحنرها إمت وأن جوجا مدة صدح مالنا وحنجعلها إن شاء الرحمن قبير وقوبا وحاليه يسدي وحود عين والسيرة أرجع أما حقيقيا سيق أرفع بدل مدة شنت بالوضع هاي وحي صومري أما شخصيا وحي لا يقول رقمي انتبه وبرامج أباهن وقت دار يفرصدو فربدل لنا وذاك دون إن شاء الله تعالى شعب الصومالي المسؤولين تبع يبش عالمك فرال أب فرحون حقيقيا أنا أكون أحسن دور نبذ الصومالي نبذ انتبه أو لأورا رقمي وحندرمي أما أن لعضي قوى شديدي البركة مقالة المقدشة اللي قبتي إن سيكرد من الله حظي لقينا قف دمبيلة ودم بالله يستود الشعب اللي يبرو كان وحيل نوع سكلته محارب أنا حسوسي شعب الصوماليين قف كستوعد في مغلها ينتبع شخصيا عبد الرشيد أحان وحا مقدشة تجي قوشيدي الكحر بيش الحال وقتني تدمني لي أنا كنت جاي مقالة اسمها عاصمة من جاك جبلان وحا قرون كيوسد ويحلبانو يوسيرو دولة الفدرال الصومالية كمل waxaan degay xarunta nabadgelyada qaranka Soomaaliya waxaan joogay ilaa bishii 7 waxaan la kulmay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Abdullaahi Farmaajo muddo laba jeer ah oo loo mid waqti kamid ah jaanis aad u dheer aan isku helnay madaxweynaha oo aan ka wada hadlaynay qadiyad ku salaysneed inta badan doorasho la rabay inay ka qabsanto Jubbaland iyo aragtiyo kala duwan oo dowladda dhexe iyo Jubbaland u dhaxeeyay waxaan dhex deganaa taliska isaa hore u sheegay mas'uuliyadda qaranka oo saraakiishiisu ama hay'adda saraakiishu u sameysay aan kulanay muddo ayada nafteeda ilaa dhowr jeer ah oo aan isla deganin oo aan deganin hotel oo aan deganaa guriga ku dhex yaalay xarunta hay'adda mas'uuliyadda waxaan ka soo tagay bishii 7 sidaan horeyba u sideedeedii waxaa dib leegu qabtay aniga oo safar ah xamar ama muqdisho garoonka aadan cadde bishii 8 Suudani koodeen bishii 7 marka haaf kamid ah waxa soo disnay bishii 7 haaf kamid ah iyo bishii 8 oo Suudani koodii ay ku ekeen mareysay oo la qabtay miyaan dambiilo ku noqday mana ahayn mid hore dambiile madaxda qaranka la kulmay xarunta dowladda deganaa taas marka shacabka Soomaaliyeed ay fahmi karaan iyo qof kasto oo xaqiiqiyan arrimaha Soomaaliya ay ka warqabo wixii aan ku xirnaa dambi shacabka Soomaaliyeed iyo dalka iyo dadka midna aan ka galay inaysan ahayn inay برامج سياسية قضية سياسية وطبعا ku kala aragti duwan sidii wax u rabtay dowladda federaalka Soomaaliya ee sidii shacabka reer Jubbaland dantooda iyo maslaxadooda ahaado ay wax u rabeen aragti kala duwan ay noqotay oo dhacday doorashadii dhacday 22 bishii 8 oo Suudani koodeeda la qabtay waxaan marka qof kasto bilaadan u fahmi karaa ama Soomaaliyeed ama rabaa inaan xaqiijiyo shakhsiyan in dambiila ah oo ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed dambi kale ma ahayn maxaa sida waxa barnaamijka Kismaayo ka dhacay
sida u dhacay kuma aana qanacsanayn buu ahaa wixii muddada 5 bilood ah lagu hayay hal yahayo dhima lahaan siyaasad rigoor lagu qabtaa way dhacdaa dad kale aragti duwan in ay ku timaado barnaamijyadan oo kale wax iska iman karo laakiin waxa haddana nasiib darro ahayd muddada 5 bilood ah inaan xarun dawladeed arag laguna xirin waxaa maqli jiray markii burburka dhacay inta badan dadka shacabka Soomaaliyeed gobolada magaalada Muqdisho ku xirnaayeen oo ganacsigooda ku xirnaayeen waxaan maqli jiray ninkii hebel ahaa oo ganacsadaha ahaa bakaara dad Soomaaliyeed hantidooda oo ku dhintay oo afduuba guryo loogu haystaa dad shacab ay leeyihiin baa maqli jiray xilligii baa dhici jirtay taas ay dhici jirtay qaybo ka mid ah waxaa markii soo baxday in aan markii la qabtay aan igeynin wax xarun dawladeed ah hal maalin guryo madaxda dawladda ay sidii karin xaqiiqiyan riski ah dad shacab oo Soomaaliyeed ay dhisteen xaafado duur oo ku yaalo dawladdu ay si kontroolin ba usbuuciyagu guri la igeynayo lagu hayay ma garan karo waxa la igu wareejinayay dabcan guryo xaafada xawar ku yaalo oo inta badan waliba kamid ahaa guri lagu hayo inta badan xaafada Hurwaa ay ahayd kolba maalba guri in la igeeyo waxa maxkamadda igeeyay si shacabka Soomaaliyeed loogu qanciyay inaan dambi leeyahay bish sagaalaad lixdeedii markaan 36 casho xirnaa kadib bish 16 36 casho markaan xirnaa kadib waxa la igeeyay guri waxa la igeeyay maxkamad gobolka Banaadir waxa cajiib ahayd eedo waxaa jirtay 2015 barnaamijka sidaad ku salaysnaa inta badan oo la ii soo jeediyay eedeyntaas horey la iigu soo jeediyay waxay maxkamadda gobolka Banaadir iyo xeer ilaalinta qaranka way xireen bishii afraad soddonkeedii sida inta badan ummadda Soomaaliyeed ay arkeen oo fayl dacwadeedkaas ay xireen ay xirtay maxkamadda gobolka Banaadir iyo xeer ilaalinta intaba waxa cajiib ahayd in isla gudoomiyihii gobolka maxkamadda gobolka Banaadir oo bishii afraad warqadda qoray isla asagii anigoo la igu eedeynay isla barnaamijka asaga ah la igeeyo oo gudoomiyihii naftiisa u yaabo cidda ay ka timid in warqadaas la qoro barnaamijkaas ahaan madaxda dalka u sarreyso oo xeer ilaalinta iyo maxkamadda intaba kala hadashay in wixii eedeyntaas la iga qoray shalay ay gardarre ahayd barnaamijkaas u ahaa dulmi u ahaa maxkamadduna ay xirtan gaal dacwadeedkaas wixii ka dambeeyay xilligaas markuu arrintaas dhacday kadib waxaan dalbaday in aan helo lawyer waxaan si darro ahayd in la diiday lawyerkii aan lahaa in uu wax kulan ah ila yeesho ilaa markii dambe si cad loo yiri ninkan kiiskiisa barnaamij aad xalin aad ka noqon kartid qareen ma ahan iskaga tag oo ku qanciyo ummadii qabatay aniga inta badan xiriir waa la diiday oo ehelada ila ahayd dib ugu soo noqdo lawyerkii oo uu yiraahdo barnaamijkan kiis siyaasadeed waayo ma ahan kiis maxkamad lagu xalin karo siyaasad baa lagu xalin karaa waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego sida horeyba ninkii taliyaha ninkii sargaalka sare ahayo journalka ahayo ka tirsanaa asluubta ciidanka asluubta Soomaaliyeed ilaa aniga bilkulliyan ba hal maalin xabsi dawlad ay leedahay station dawladeed xabsi ku yaalo ama xabsi dhaxal dawlad ay leedahay iyo xarun dawladeed midna inaan arag waxaan kala rabaa inaan xaqiijiyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan rabaa ummadda inaan u xaqiijiyo meel aan ku xiranahay kuma soo rin wasiirka amniga oo isku bahda ahayn ma uusan ogeyn meel aan ku xiranahay shakhsiyaad yar oo kooban oo taliyaha nabadgelyada qaranka Fahad Yaasiin kulane oo baawar aad u fara badan dabcan shaati qabiil baa lagu siiyay aan dhihi karo oo ama ku xirtay ama wixii dawladda iyadii naasabadan ay ku burburtay in raad badan oo kamid ah ayuu ku shaqeynayo aragtida ay muuqanayso in qofka saddexaad oo barnaamijkaas ka warqabay wuxuu ahaa Saadiq Joon oo ah jiraan Saadiq Joon oo ah taliyihii qaybta gobolka Banaadir saddexdaas nin dabcan waxaan u wareeyay wasaaraha dalka Soomaaliya lugna inuu soo kulayn ummadda Soomaaliyeed rabaa inuu xaqiijiyo inuu soo lugna kulahayn
dhibaatayntii shantaas bilood la imariyey meel aan ku xiranahay iyo wax la haysta midnaba uusan ka warqabin ra-iisul wasaaraha dalka taasna xaqiiqiyan wax dhab ah oo jirtay ahayd falilahi alxamdu walmanna barnaamijka isaga ahaa waan ka soo gudbay waxaana ii suurta gashay waddo kastoo isticmaalayba inaan maanta xorriyad ahay joogo deegaanada jubbaland degmo ka mid ah ku suganahay buula xaawo dhex jooga ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland waa arkahayay waxaan kaloo dareemayay tariik-xeenka ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal sarkiya hawareerta waaye aniga gabar hawareerta waayo mar raba inaan ku fogaado laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo labada jiro idaacadda ay ka hadashayba marnana axwaashiida kamaysa warqabin mar kasto waxaan rabaa in ama telefoon loo soo diray ama haloo yeero ha u tagto dadka systemkaas gacanta ku hayay loo diray inay idaacadda ka hadasho laakiin aysan ka warqabin system aan ku xiranahay iyo meel aan ku xiranahay iyo wax lagu haysta midna hawareerta marka oo cudur daaraya dhib male biidni illaahi tacaala mar raba inaan ku fogaado dabcan intaas markaan kasoo gudbo waxaan aada uga xumahay waxaa maanta ka jiro gobolka gada qayb ka mid ah gaar ahaan degmooyinka balaxaawo doolow iyo luuq doolow iyo balaxaawo iyo luuq markii koonfurta soomaaliya oo dhan ay argagixisadu qabsatay 2008 waxaan umaleynaya doolow bay ahayd degmada keliya ah oo koonfurta soomaaliya ku taalo oo shabaab ka badbaaday waxaan dib ugu abaabulnay ciidamo soomaaliyeed oo dowladda t f g ama dowladda kumeelgaarkeeda soomaaliyeed ka mid ah oo hoos yimaado ciidamo qaran ah ciidamo dowladeed ah waxay ciidamadaas xoreeyeen baled xaawo bishii saddexaad 2011 bishii saddexaad shanteedii baan buula xaawo qabanay bacda shidda oo tacab dagaal aad u fara badan iyo caqabado fara badan oo soo maray kadib magaalada dib waxaa loo qabtay shantii bishii saddexaad 2011 luuqna waxaan qabanay 7 bisha kadib garbahaarey ayay ciidamadaas qabteen oo caasimadii gobolka ah ama xaruntii gobolka ah waxay ku sugnaayeen muddo badan weeraro badan iyo dagaalo badan oo hujuun ah oo cadowgu ku sameeyeen oo isku difaaceen waxaa koonfurta soomaaliya aan ognahay 3 magaalo isku furan oo shacab iyo mas-uulba si nabad loo mari karo waxaa ka jiro balaxaawo doolow iyo luuq oo gaadiid intii loo kala raaco cabsi la-aan lagu maraayo jidkeeda intii ayadoo nabad ahayd maanta inay dowladdu nabadda ka qaado oo mas-uuliyiintii dowladda u sarreeyay ay ku fikiraan in shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adihiisa samafalka ka dhex shaqeynayay oo ummadda Soomaaliyeed bulshada oo dowladda looga baahnaa qayb badan oo kamid ah u hayay shacabka Soomaaliyeed in khalkhal la geliyo oo shacabka la dhibaateeyo oo hadda dhimasho jirto oo dhac uu jiro oo shacabka khalkhal la geliyo intaasna xaqiiqiyan waa in aad uga xumahay waxaana dabcan mas'uuliyaddeeda qaadan doono madaxda Soomaaliyeed oo go'aansatay in dal nabad ah ciidamo Soomaaliyeed ay joogaan oo daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland ay leedahay khalkhal intaan la eglageliyo oo dhibaato intaan la lagu sameeyo iyadoo waxa la dirahay ay tahay hebel baa nacbahay waxa guul darro ah hebel baa nacbahay ama hebel baa nacbahay in shacab Soomaaliyeed noocan loogu galo arrin xaqiiqiya aad guul darro ah waxaan shacabka Soomaaliyeed loo wadaagi doonaa muddadii aan joogay Muqdisho oo koobneed oo aan horey uga hadlay oo madaxweynaha dalka dowladda federaalka Soomaaliya aan kulanay muddada 2 jeer ah muddada dheerna aan kulanay waxaan rabaa inaan xusuusiyo shacabka Soomaaliyeed muddadii yarkeed usbuuca ka yar oo ciidamadan la keenay degmooyinkii amniga ahaa oo nabadda ahaa oo 2011 la xoreeyay oo cadowga laga fogeeyay oo nabadda haysatay waxaa hadda dhacday in magaalada degmada luuq oo kale cakaaro oo xarada ciidanka ay ka shayso oo magaalada gudaheedii ah istaalkeeda in shabaab daawo ka rartaan sababtuna ay tahay raggii ilaalinayay oo yaqaanay oo cadowga meesha uu soo marahayay yaqaanay iyo systemkay wax ku ilaalinayeen oo dhan baa meesha laga saaray doolow oo amniga ugu badan uu ka jiray gobolkana dhimasho iyo dhaawac baa ka dhacay waxaa dhacday buula xaawo in shacabka Soomaaliyeed xarurtooda cashooyinka u karsanahayeen digsiyadii in dabka lagala daway askaro cunto waxay ku noolaayeenna ama balax xaawo amniga ay haysteen iyo luuq iyo doolowna oo dambeyn sanadii hadda ugu dambeeyay waxaan filayaa mid ay marqaati ka tahay beesha caalamka gaar ahaan hay'adaha samafalka ka shaqeeya iyo bulshada Soomaaliyeed ku nool intaba
waxay ahayd mid marqaati madoonta ah oo qof kasta Soomaaliyeed uu og yahay amniga ku jira degmooyinkaas waxaan rabnaa shacabkayaga tiro badan iyo dhib badan baan soo marnay waxaa joogay ciidan akhlaaqiyan aad u wanaagsan ciidan Soomaaliyeed ah waxyaalaha xataa muqaadaraadka ah oo inta badan askarta Soomaaliyeed isticmaasho aysan dhici karin askari barnaamijka isticmaalahay uu ku dhex noolaaday ciidamadaas waxaa dhacdo waxyaalaha hadda shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan degmooyinkan ka dhex dhacay kamid ah maqaayadda cuntada lagu karinayo intii la soo galay la yiraahdo xashish iiba ma haysa khamri iiba ma haysa ayadoo biyo lagu dari jiray arki jiray ayadoo saaka aan maanta haysanaa isku bishaareeyo oo qoryo askari qori jiidahay oo magaalo dhex marahay oo qori intuu gafoor ka qabtay dhulka ku jiiday wallahi waa wax nasiib darro oo aad looga xumaado waxaana barnaamijkaas ayada mas'uuliyadda qaadi doono madaxda dowladda federaalka Soomaaliyeed oo ku fikirtay arrintaas ayada ah waxaana rabnaa in aan xaqiijiyo in aan shacabkayaga ku fiirsanin dhibaato wadaxaawo لو كنا كويتون كمان كان قبلين لو حيل مجال عن سنة شباب دفاع عن مدح الشباب كلنا اسكوتين وحن قاعد إني وحن كنا شعب كي وكنا لهاي إن أوقات كيسكنين مركان حرين تسكبر كسبيني حروا إن الحقيقيو إن مرنا نقدر قاعدين وح كرعي سيستم كان وح من قضية على قشة يسرها يومين دي يوم حلو هذه شر الشباب عدو أحيان وشعب الصومالي إن كلا تعالنا عن سرني هذه عدو كدوان ولمد شعب الصومالي اللي يسوي داير الرباطين يوم مسؤولينته أهين مرة ما أقبلين إن بريطان كان نجا يدور النماذج نذا يوحى عن قصة لسنة إن لو عيار منهم ونحن جدير ربا إن أدبا وحنا روحنا هاي إن دمير الصوماليين وعدو وبنان كتاجية ودلك أمن درك جرته وعدو شباب يراو هست إن ما أنت أيك دبل سكول لايو أبي أنا روحنا هاي وحكروا نصيب درعة مقالوا بشأني أنكو حرنا شنتي برودة أن أفضل كل يوم استعمال استباتك كده أو أن قفل جدلين أو بصورة الجدل أو ضمن مرة الجطورة أو قرحة كده أو سيدي كي هذا إكس كنترول كده أو الشعب الصومالي أو فرب بدن يدبر ضد أمد الصومالية دولة كلا أو نكالكالة أنت وهالله يه وحقيقة إن أمنية مجال مقدشو وزيرة أمد الصوماليين يفهم يسوي أكتر ومقدشو يأفقوا يصدق كيلومتر دولة كنترول لا صدق كيلومتر أفقوا يسكده مقدشو جده دولة كنترول لا هل جد أو كلا حرال أو قف مسؤول قف عنه الأصول مريكين أفراد تكسر عن دوات كلام بقول يدمون النبض أهنا أمنية اللي قالوا برامج كان بسميه فاسنا وحرنا أمد الصوماليين يباشا عالم كأنت بقى وحيالها دعها يو ومسؤولين الدولة الصومالية وهذا ذلك الملاحظة كيف فكرها يعني عرفنا 2020 إن جارنا قفنا جارك تدون وأنا ترين بارنا كاتنا نضل نقول بسنة الدولة نروح يعني من الأدياب وما سنتين وعرف أمد الصومالية لنا أحقيقي إن لو ذاك دونه من بداية إلى النهاية أما تمام إلى باللو شنت البلاد وحلو ورد أدياب وما سنتين يقدر ده كحرنا